بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii raxmaddii aynu ilaahay ka baryaynay baa timi maalintii ugu horreysay raxmaddaasina heshayna dhibteeda yeelatay oo magaalada Hargeysa naf iyo maalba way kasbatay marka intii dadku ka dhintay waxaanu leenahay samariye iimaan iyagana ilaahay naxariis jannaha inaga siiyo annaga har wanaag ahaan waa taasoo waa aragtaan hudheelkii daadku albaabku naga soo galay daadkii albaabka ka soo galay baa fujistay ilaa deerkii dambe iyo wixii oo dhan halkan taaganna waa dooxa dhowr sanadood gudahoodna waa markii labaad ee arrintan dhacdo waxaana waxa koos garaynaya iliilada yar ee har wanaag horteeda maraysa oo inta shabag lagu xidhay xashiish xidhay ilaa bakhaarradii agagaarku way buuxaan oo alaabtooda way baaba'day annaga sariirii iyo hudheelkii iyo hurdadii iyo wixii oo dhan way buuxaan jikadii way buuxdaa 12 baa la marayaayo dawlad hoose iyo dawlad dhexe mid noo timi oo na tiri sidee xataa wax u qabtaan ma jirto waa min subxaanallah oo kamaana filayn ta dhexe iyo ta hoose midna inay ilaa intan qaadato dhowr iyo 10 sannadood cashuur igumay baaqan ama tu dawlad dhexe ha noqoto ama tu dawlad hoose dhulkan aanu ku nimay dabaddana cashuurtaada waa inay wax ku iibsaa runtii ismaan lahayn waxaana dhici waxbaa dhiman xukuumadda dhexe waxaanu leenahay dadka iyo dalkaba sidan ha loo dhaamo ta hoosena waxaanu leenahay maba jirtee madaxweyne sidan haddaynu ku sii socono dawladnimo ma sheegan karno markay caasimaddii sidan tahay si dhaqsaa waxaad wax uga qabataa in dadka citizenska ee u dhashay Soomaaliland ee la xajacda kalihi taladoodii markaan la qaadanayn ee dhowr sano ka hor markaan lahayn wariiladan ha la furo si aanay marbaad albaabka uga soo galin khasaaraan inoo gaarin oo bakhaarada aanay u gaarin wax laga qabto maanta haddaad eegto suuqa dhexe weeyaan hadda cagafiyaa ku jiro golchana waa laga shaqaynaya har wanaagna sidee wax u qabtaan ladnama oran waxbaa khaldani waxaan khaldanayn saxno dalkan waynu wada leenahay la xajaclaynu ka leenahay hadduu sidan ku sii socdana wuu inaga dumaya war halaysa saxo waa iga talo waa yeelnimo waa iga talo qof la xajaclo kale oo dalkan u dhashay oo aanu soo shaqo tagin dawlad hoose waa la doortay bay dadku ka baajiyaan qofkaa doortay hadduu shaqada qaban karin waayo waa in dawlad dhexoo intervention samayn kartaa ay jirtaa from xalay 6 fiidnimo ilaa 12 maanta in cidna soo eegtaba oo warbarsidaynu wax u samaynaayo bridge-ka halkaa idin jiro oo bakhaaradii halkan idin jiraan oo aragteen hadda markaa soo socoteen imsay idinku qaadatay inaad soo martaan waddadaas biyiina way xidheen baabuur baa intii kale ku baargaraysay warniyo waxaan leeyahay nuqsaan badan baa jirta ee dalka iyo dadkaba sidan ha loo dhaamo